السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو soo noqod waxaan wanaagsan dhamaantiin baa asxaabta channelkeena ku xiran Garooshi. Maalmahan waan yara mashquulsanaa sida awgeed ayaan muuqaal u soo galin waayay. Muuqaaladeennii halkii ay noo marayeen baan ka sii qaadi doonaa. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ama uu ku daba xiran yahay muuqaaladii hore ayaanu kaga warramaynay dhulka barakeysan ee Baytul Maqdis ama Qudus sidaad u taqaanidba. Qaybtii hore waxaanu kaga soo hadalnay inay Qudus tahay qibladii koowaad ee muslimiinta. qaybtan waxaan kaga hadli doonaa inay Qudus tahay dhulkii dheelminta iyo guuraynta. haddaba intaan muuqaalku galin waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalka leed saartid siduu dad badan u gaaro. haddaad channelka ku cusub tahayna farxad bay noo tahay inaad ugu soo biirtid oo subscribe aad saartid. muuqaalkeena maanta ha u guda galo. Qudus meesha ay ku dhamaanaysay guuraynta dhulku una ka bilaamayay hanashada dheelminta samadu. doonitaanka alle ayaa keentay inuu ka bilaamo socdaalka dhulka ee maxamadiga ah habeen barakeysan isagoo ka bilaamay Maka oo ah masaajidka xurmada leh ee uu deganaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam kuna dhamaanayay masaajidka Aqsa. arintaas ma ahayn arin iska timid, waxaase ahayd maarayn alle iyo xikmad rabbaani ah. waana inuu la kulmo rusushii iyo nabiyadii koodii u dambeeyay, rusushii sharafta lahayd, tujiyana isagoo iimaan u ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu tujiyo rusushii ka horeysay. waana ogeysin la ogeysiinayo in hogaankii diineed ee dunida laga soo wareejiyay reer bani Israa'iil laguna wareejiyay ummad ugu rasuul cusub, kitaab ugu ummad caalami ah, rasuul caalami ah iyo kitaab caalami ah sidoo alle uu yiri subhanahu wa ta'ala. waxa uu ku sheegay quraanku bilowga socdaalka iyo dhamaadkiisaba. aayadda ugu horeysa ee sidata magaca safarka waa suuratul Israa. wuxuu yiri alle subhanahu wa ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. waxa xumaan ka dheer Allah ka guureeyay adoonkiisa nabiga habeen masaajidka xurmada leh ee Maka ee u kaxeeyay dhanka masaajidka Aqsa ee aanu barakeynay aagiisa si aan u tusno aayaadkayada ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yiri aayadda suuratul Isra aayadda koowaad ayuu Ilaahay sidaa ku yiri. qisada guuraynta iyo dheelminta waxa ka buuxa tilmaamo iyo daliilo ina tusaya muhiimadda ay leedahay goobtan barakeysan oo Jibriil ku xidhay Bureeqa oo ah daabad shamraar leh oo ahayd gaadiidkii laga gudbayay Maka ee lagu tagayay Qudus. wuxuuna ku xidhay dhagax kadib markii uu ku soo galay safarka Qudus ilaa iyo samooyinka sare. waxaana ay dhaxal siisay taasi muslimiinta xasuusta safarka oo ah dhagax iyo xeradii Bureeqada. ugu dambeyntii haddii aanay ahayn Qudus middan looga leeyahay safarkan waxa dhici lahayd in Maka si toos ah samada looga tago. hase ahaatee in la sii maro goobtan barakeysan waa arin ujeedo leh sida ay inoo sheegeen quraanka kariimka iyo xadiista sharafta leh.